al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo xalay ku dagaalamay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. ammaanka magaalada Marka oo aad loo adkeeyay ra'iisul wasaare Khayro oo saacadaha soo socda ku wajahan. xaaladda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud oo degan kadib markii shalay ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya laba beelood. madaxweynaha Jubbaland oo sheegay inaysan jirin cid ay dawladda federaalku ka xiri karto duulimaadyada isaguna uu halkuu doono u duuli karo. qabanqaabada shirka maalgashiga Puntland oo laga dareemayo magaalada Garowe ee maamulka Puntland. waa Israa'iil oo beenisay in ay basaasay aqalka cad ee Mareykanka. shabaab iyo ciidamada dawladda ayaa xalay ku dagaalamay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. wararka laga helayo degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladdu halkaasi ay ku lahaayeen. dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Aljaale, sidoo kalena waxaa saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay weerar ay ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa. inkasta oo dadka deegaanku ay sheegeen in weerarka ay soo qaadeen al-shabaab socdana daqiiqado aad u badan, waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo laga heli karo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka soona kala gaaray dhinacyada dagaalamay, maadaama dagaalku waqtiga uu dhacay ay ahayd saq dhexe. dhinaca kalena dagaalyahanadii shabaabka ka tirsanaa ee weerarka soo qaaday ayaa dib ugu gurtay magaalada kadib markii ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagu ay dhowr daqiiqo rasaas dhinac kasta ay isweydaarsadeen. magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa tan iyo markii ay ciidamada dawladdu ay la wareegeen waxa uu ahaa ammaankeedu mid aad u soo hagaagayay, waxaana yaraa rabshado ka dhici jiray magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kalena amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeynayaa maanta, waxaana halkaasi ku wajahan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre. socdaalka ra'iisul wasaaruhu waxa uu la xiriiraa safar uu ku tagayo magaalada Marka si uu u soo hubiyo dhaqangalka dib u heshiisiin halkaasi horey loogaga dhawaaqay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay. sidoo kalena waxa uu soo hubin doonaa dhaqdhaqaaqa magaalada Marka iyo sidoo kale waxaa iska bedelay nolosha dadka tan iyo markii al-shabaab laga saaray magaalada Marka qayb ka mid ah oo ay maamuli jireen. sidoo kalena ciidamada dawladda iyo saraakiisha ayuu halkaasi kula kulmi doonaa madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa la filayaa inay halkaasi ay wafdiga ra'iisul wasaaraha ay ka mid noqdaan, isla markaana ay u soo kuurgalaan xaaladda magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in aysan jirin cid dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka xiri karto duulimaadyada, waxaase uu sheegay in isagu halkuu doono waqti kasta iyo goor kastaba uu u duuli karo isagoo oo aan marin magaalada Muqdisho. axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku goodiyey in cidda dhibaatadu ay gaaraysa ay tahay dadka shacabka ah, laakiin isaga amarkiisu aanay qaban, waa awaamirta dawladdu aysan qaban karin isaga. dhinaca kalena waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dawladda lagula xisaabtami doono xayiraadii ay kusoo rogeen duulimaadyada Kismaayo. baasaboorka lagu dhuftay exitka lagala dhuftay Kismaayo inay dhaankaasi waa ma soconayo, exit labaad loogu dhuftay Muqdisho oo laba exit ay noqotay inay hal baasaboor ku dhacdo. waa immigration stateku ma laha, waa federal level. waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo. waayo cidda la cuna qabataynaya maanta haddaan anigu doono meel alaaliya meeshaan doono inaan u safro without permission kooda meeshaan doono aadi karaa. hadday berri igu dhalato berri waan safri karaa. cidda la cuna qabataynaya waa ayo. waxaa la leeyahay sharar baa laga qaybgelaya, hebel wasiir baan ah iyo kanaan iyo kulli aan sidan yeelo kanaan yeelo. war waddankani maanta haddaan idhaahdo dawladda Starbuckska kafeega ku cabaysay shalay timida waddanka wax laga soo maray jirin, haddaan maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo dawladda midna ma aqoonsani. dawladda imaha lamana shaqeynay ma la yaabis baan leenahay. shacab baan shalay tarxiyo u soo soo meediya dhaawac loo wadanaanu keenay
marka kafeega la cabayay maantana waxaa la taagan yahay wadanka meeshii dib loogu celiyo sax loo yeelo iyo doorashada shaarka ma gelaya ma leekaanaya maxaa kalsooni haday jirto oo diiday inay tagaan wadankooda sida yeelan oo sharaxan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hadalkaas waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo shalay uu ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana uu sheegay in ay dhibaatooyin badan ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gelisay deegaanada Jubbaland waxa uu sheegay intii ay socdeen doorashooyinkii dhacay 22 bishii Agoosto ay dawladdu isku dayday inay ciidamo geyso magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale sidoo kalena markii ay u suurtagali weysay sida uu yiri ay fariisimihii ciidamada ay shabaab kula dagaalamayeen ay dib u soo celisay taas oo uu sheegay inay ahayd caqabad kale si ay dawladda federaalku ay galaangal iyo awood ay ugu yeelato doorashada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay in ay wax ka bedesho arrintan haddii kalena cawaaqibka ka dhasha ay iyadu dusha ay saaran doonto qabanqaabada shirka maalgashiga ee maamulka Puntland ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Garowe ee maamulka Puntland kulankii shalay ay yeesheen golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa waa maamulka Puntland ayaa waxaa la sheegay in markaasi laga dooday arrimo la xiriira shirka maalgashiga iyo sidoo kale uu diyaar garowgiisa waxaana golaha wasiirada ee maamulka Puntland ay si weyn ay uga hadleen shirkaas oo muhiimad u leh Puntland isla markaana ay ka soo qaybgali doonaan hay'adaha caalami ah waxaana fursad uu siin doonaa maalgashi lagu sameeyo Puntland iyadoo golaha wasiirada iyo saraakiisha la amray in ay ka qayb qaataan xaqiijinta amniga inta uu socdo shirkaas si ay markaasi Puntland shirka inta uu socdo ay u xaqiijiso nabadgelyada deegaanadeeda xaaladda deegaana ka tirsan gobolka Galgaduud oo shalay 2 beelood oo walaalaha ay ku dagaalameen ayaa degan waxaana halkaasi shalayto ka dhacay dagaal xoogan u dhaxeeya labada dhinac oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh gudoomiyaha deegaanka lagu dagaalamay oo ka tirsan gobolka Galgaduud lana hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ugu baaqayo dhinacyada inay diriirta joojiyaan sidoo kalena waxa uu sheegay in looga baahan yahay odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda iyo maamulka Galmudugba inay ka qayb qaataan daminta xiisadaas laba nin oo magaalada barigeeda meel ku dhintay maantana galbeedka magaalada waxaa ku dhintay nin baa ku dhintay laba nin oo ku dhaawacantay runtiina waxaa weeye dad reerliya oo shacab ah oo caradooda dega ayaa isku dilaya meeshaas runtii dagaaladan waxay kaba ku hayaan aana qabiil dadkan sidii dowladii weyneed ee Soomaaliya u burburtay wax dibeysiina oo weyn ma ay helin waxaa kaloo jira runtii mar walba waxaa dhacay dilkaas lama soo qabto ciddii wax dishay ciddii wax laga dirayna lama siiyo wax xuquuqa oo ay ku qancaan marka waxaa dhacda mar walba markii qof la dilo odayaasha iyo culimada iyo maamulka inta dhex galaan ay wixii qaboojiyaan in haddana dadkii laga dilay mar labaad ayaguna wax sii dilaan shalay waxay ka dhaceen meel jeclo la yidhaahdo oo magaalada barigeeda ah oo magaalada sidaa uga fogeyn maantana waxay ka dhaceen meel la yidhaahdo gaxandhaale oo magaalada galbeedkeeda runtii hadda ma jirto iyadan iskor fadhiya iyo abaabul jiraa ma jiro sababtoo ah hadda dagaal qabiil oo isku duula ma jiro waxa socda waa wax dad kara ka maqan tahay oo shakhsiyaada ay samaynayaan markii ay ka faa'iidaysan karaan oo arkaan dad degan oo meel joogayna wax dilaan laakiin hadda duulaan meel ka socdaa ma jiro halka warkaas subaxnimadan kaga imaanayo waa dalsan markaana dibadda Israa'iil ayaa beenisay inay basaasay aqalka cad ee Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu si cad u dafiray war ku saabsan in uu dalkiisu u basaasay Mareykanka 3 saraakiil sarsare ah ayaa la sheegay
in ay u badan tahay inay Israa'iil ay ka dambeysay 3 aaladood oo ah kuwa wax basaasa ah oo laga helay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo. hase ahaatee warbixin laga soo saaray xafiiska Benjamin Netanyahu ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa lagu sheegay in hadalkaasi kasoo yeeray saraakiisha uu yahay mid aan xaqiiqada aan sal ku lahayn. madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa Khamiistii shalay ahayd uu wariyaasha weydiiyey warkaasi ku aadan basaasnimada lagu eedeeyay Israa'iil, waxaana Trump uu sheegay inuusan aaminsanayn in Israa'iil ay basaastay Mareykanka.